marka runtii anigu waxaan aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa arrintaa in xisaabta loo gudbay lagana gudbay anigoo reer hebela ama anagoo beel hebela waxaasaan rabnaa maanta waxaan malaynayaa ama beel yar ahaw ama beel weyn ahaw in cod uun ku maamulayo qofkii ugu fiicana markaa uu dee hogaanka xisbigaas uu wadaayo oo aanay noqonayn reerkanaa reer hebele ama reerkanaa isla halkaa wasiir haddaynu kusii joogno iyadoo aynu ka warhayno in aad kamid tahay wasiirada in badan aan dhicin oo dadka ku xanta ay sheegaan Saciid Maxamed Raagi waa wasiirada badanaa wax qabadka la taaban karana muujiya marka dhinaca positive-ka laga eego waxaad ka tirsantahay dowladda Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud saaxiib aad u dhow waa laydinku xanta marka hadafka ma kugu jirtaa siyaasadeed inaad xisbigiisa aad ka midha dhalisaan oo aad kasii wadaan mise adiga iyo saaxiibadaaba waxaa jira program kula aad xisaab ku sameynaysaan runtii horta xisaabta runtii waxaa muhiim xisbigu inuu yahay mid maaragtay constructive ah ama dalka dani ugu jirto xisbi baan furanayaa hadal maaha waa inna baahina keentaa xisbiga runtii marka la furanayo anigu hadda dee dowlad baan ka tirsanahayo weli xisbi aan furanaya ma jirto maadaama haddaan dowladna xisbiga aan ku heshiinay oo aan nahay xisbiga ugu horreeyay oo Puntland laga furo ay tahay hadda xisbiga dowladdu haddee waxaan u maleynayaa kaasun baan hadda ku wada dhannahay hadhow waxay noqon doonto dee ilaahay baa og laakiin maadaama aanu hadda Cabdiraxmaan Faroole iyo dowladdiisu aanu ka tirsanahay xisbiga horseed la yiraahdo ayaana dowlad ahaan iyo maamul ahaan wixii u shaqeeyay dowladda ayaanu ka wada laakiin waa dhici doontaa dee hadhow in xisaab kale la kala noqdo waa macquul laakiin ilaa hadda kaasaa muhiim ah runtii aad baan noo soo dhaweynayaa waayo waa arrin muddo la sugayay oo runtii u baahnayd in mar hore la sameeyo waayo Puntland isqabaqabsigeeduba inta badan wuxuu ka imanayay beelahaas marka waxaan marayaa maanta xal baa la gaadhay qofkii doonaya maanta inuu wax bedelo ama Puntland ka bedelo siyaasiyiin badan baan arkayo qayl inta badan doodaya waxa weeye maanta meedaanka ha yimaado ha furto ha qanciyo dadkuna ha doortay marka waxaan anigu haystaa runtii wax muddo badan la sugayay maanta hirgashay in loo saacadtu wasiir waxaynu ka warhaynaa in hami fara badan oo siyaasiyiin reer Puntland uu jiro oo ay doonayaan inay masafkan wadanka hogaamintiisa qaataan maadaama idinku dadkii in badan ka dhaqaale badan tihiin iyadoo dhinac walba leegaygay haddaad tihiin wasiirada iyo haddaad tihiin madaxweynaha iyo governorska gobolladaba miyaan la odhan karin caqabadaad u dhigtay siyaasiyiintii kale inay xisaab soo furtaan oo dabeedna dad badan soo ururiyaan awal hore iyadoo aynu ogeyn in dhowr iyo 60kan xildhibaan ee baarlamaanku ay codka bixinayaan oo dee ay qofkii siyaasiga oo fikriisa nimanka ka dhaadhicin karo laakiin iminka inay gobolladii Puntland oo dhan tagaan oo loola bilaabaan miyaanay ku cuslaanayn siyaasiyiintii doorashadeedii lagi lahaa bil iyo bar kadib runtii ma arko anigu annaga laftayadu lamid baan nahay waxaan u malaynayaa in hadda la furo xisbiga koowa registrationkii in xisaabtii loo furo shuruudaa jiriya runtii oo dee xisbiga ku dhaqmaayo marka waxaan u malaynayaa iyagaa naga sii diyaarsanaa oo dee muddo noo sii fikirayaan malaynaya anigu waayo kolleyba diyaar garoobay la tahay annaga armaan anagu gullidanaa marka waxaan aaminsanahay xagga dhaqaalaha hadday noqoto iyo xagga baalkii horta wixii amni ah dowladda mas-uulka ah inta xisbi ahaan aanu xaq u leenahay biyagun xaq leeyahay kow amnigooda xataa markay qabanayaan garanaysaa dee in ay wax fulinayaan xisbigooda ay ka hadlayaan dowladda amnigii iyo facilitationkii wixii oo dhan kuu qabanaysa marka runtii waa wax aan wadaagnaan u malaynayaa wax hadda aan anagu gaar u leenahay ma malaynayo inuu noqon doonaa iyadoo anaga ka TV honkiilaan fursad noo tahay inaan kugula kulno dalka Jarmalka yaa waraysiga dhinacyo badan aan kula yeelanayna markaynu dhinacan bal maamulka iyo xisaabta yar joojino waxaynu ka warhaynaa in falalkii burcadbadeednimada oo aad adigu weliba wasiirka la dagaalanka Puntland inay ilaa xad yaraadeen marka runta laga hadlayo qaab nooceedu wajahada la odhan karaa runtii horta dee waa hadba siyaasadda dowladdu hadba qaabkii waxa u maamusho anigu wasiir ahaan waxaan ahay wasaaradda u xisaarane waa wax runtii aanu qabano wax dowladda oo dhami ilaa madaxweyne ilaa iyo taliyaha weerarka iyo boolisku qabto runtii dee horta wax badan baan soo maray oo waad ogtiin xataa anaga ay agaasimahayay qaar baybana aftooyanba oo sida maraakiibtaas baa naloo haystay muddo runtii in lagala dagaalamo badda oo la joojiyo ay yaraadaan runtii waqti badan baanu ku bixinay annaga iyo runtii ciidamadaas saakadaa waxaan ku wada hadlaynay markab badda ku daadiyay sibir oo xamar sibirka soo celiyey
inta laga lahaa oo laga lahaa north waqooyiga Korea kaasoo xamar inta midaqooyi sameeyay ku daadanayay badda oo ciidanka badda soo qabteen marka kulliyo waa arrin horta baddu arrintu taagan oo dhibaatada taagan tahay waana meeshii dee ummaddu wax u soo marayeen runtii oo ama caalamka oo dhan wax u marayeen waad la socotaa 50,000 oo qof 50 baan u maleynayaa 1,000 baa markab meelaha mara Suez Canal iyo South Africa sanadkii 30,000 waxay soo maraan gacankeena marka runtii waa arrin weyn oo wax badan dee u baahan in la qabto waa la yareeyay annaguna xeebtaan kula dagaalanay maamul ahaan nimankeena xagga badda kala dagaalameen marka waxa weeye maadaama ay soo yaraadeen marka waxa weeye maxaa looga gudbayaa su-aasha weeye haddii nimankii iska tagaan dib raaxid waa soo noqonaysa si wanaagsan marka waxaa la rabaa alternative kale in la helo